السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا سومالي جوبس مدش الصوب بندقتا فرصة الشقو iyo waxbarasho madasha isku xidha shaqo raadiyeyaasha iyo shaqaaleyaasha waxaynu maanta eegi doonaa sida loo diyaariyo CV ama resume sida ay naga soo codsadeen bulsho badan oo ku xidhan Somali Jobs inta aynan gudagelin samaynta CV-ga oo aynu si waadixa ugu samayn doono haddii aan la yiraahdo barnaamijkeenan maanta waxaan eegaynaa maxaa ay tahay in lagu qoro CV-ga waxyaabaha CV-ga lagu qorayo waxa kamid ah personal details waxyaabaha ka warramaya qofka magaciisa addresskiisa emailkiisa mobilkiisa waxyaabahaas kamid ah waxa kamid ah CV-ga aan ku bandhigi doonaa heerarka kala duwan ee waxbarasho iyo shahaado ee qofku leeyahay waayo shaqooyinka hadda aynu wadankeena ama dalkeena ka jira waxa lagu xiraa level kala duwan ama heerar kala duwan oo waxbarasho caadiyan CV-ga waxa muhiim ah inaad waxbarashada levelada ka gaadho dhammaan ku muujiso waxaan sidoo kale ku eegaynaa oo aynu ku muujinaynaa CV-geena work experience khibradaha shaqo ee qofku leeyahay ayuu ku qorayaa isagoo u qoraya sida ay shaqooyinku u kala dambeeyeen tusaale ahaan shaqada imika aad hayso waad ugu soo horreysiinaysaa shaqadii aad hore u hayn jirtayna waad ku xigsiinaysaa si nacam shaqooyinku had iyo jeer ay u soo kala sokeeyeen ayaad u qoraysaa had iyo jeer waxa kale oo muhiim ah oo CV-ga aynu ku muujin doonaa skillska ama khibradaha dheeraadka ah ee uu qofku leeyahay iyo waxyaabaha uu awoodda ku leeyahay ayaynu iyagana ku muujin doonaa haddii aan la yiraahdo skillska waxa kamid ah qofku wuxuu aqoon u leeyahay computerku aqoon dheeraad ah u leeyahay language buu yaqaan ka baxsan language-yadan shaqada la doonayo iyo tababaradii u dambeeyay aad qaadatay waxyaabahaas oo dhan baa lagu muujinayaa CV-ga maxaan haddaba lagu muujinay CV-ga waxyaabaha ka reeban in CV-ga lagu muujiyo waad ku muujin kartaa laakiin macna ma sameynayaan CV-ga waxay noqonaysaa mid aan macno lahayn waxa kamid ah inaad CV-ga ku qorto date-kii ama sanadkii aad qortay oo tusaale ahaan oo kale 2008 baan qoray adigoo maanta shaqo abla garanaya 2014 waxa kamid ah waxyaabaha ka baxsan macluumaadka lagu soo xiriirayo waxa kamid ah adoo da'daadii sheega adoo yiraahdo male ama female baan ahay adigoo ka warrama xisbiga ama mabda'aaga siyaasadeed adigoo sheega xaaskaaga ama carruurtaada magacyadooda loo baahna kuwan in lagu qoro waxa ka reeban CV-ga in lagu qoro sawirkaaga inaad ku dhajisaa macnaheeduna sameyn mayso waxa kamid ah inaad ka waranto astaamahaaga qof dheer baan ahay qof gaaban baan ahay waxa kamid ah oo aan CV-ga aan macna u yeelayn inaad ku qorto shaqada tan aad CV-ga u qorayso shaqooyin aan xiriir la lahayn oo aad ka buuxiso wax macna ah ay soo kordhinaysaa ma jirto waxa kamid ah adigoo ka warrama weaknesses-kaaga tusaale ahaan Microsoft Word baan si fiican u aqaanaa laakiin Excel-ka waan ku liitaa waa weaknesses loo baahan inaad sheegto waxa kamid ah oo CV-ga ka reeban oo aan lagu darayn negative comments-ka tusaale ahaan oo kale inaad ka waranto booskaagii hore oo aad tiraahdo waxa madaxay ahaa nin dabeecad xun waxa madaxay ahaa nin shaqaalaha ku adag waxay muujinaysaa taasi nacam weakness aad leedahay oo ah in attitude-kaagu negative yahay shaqadaana markaa cid ku siin mayso waxa kamid ah inaad ka waranto mushaharkaagii oo aad tiraahdo mushaharkaygu wuu yaraa caynkan u ahaa that means loo baahna CV-ga inaad ku qorto negative comments waxa sidoo kale aan CV-ga looga baahnayn inaad ku darto magacyada iyo meelaha lagala xiriirayo employers-kaaga hore waayo taasi waxay iman doontaa interview-ga dhexdiisa lagu weydiin doonaa reference-kii iyo ciddii lala xiriirayay waxa kaloo kamid ah inaad ku qorto kelmaddan had iyo jeer lagu qoro ee ah references are available upon request nacam codsi kadib bay reference-ku uu
available noqonaya lama baahna waayo haddii lagu xiiseeyo oo CV-ga la xiiseeyo marka interview-ga la galo ayaa reference-ka lagu weydiinaya waxaa sidoo kale ka reeban CV-ga inaad ku qorto waxyaabaha beenta ah ama misleading information-ka inaad been ka sheegto qualification-kaagii mushaharkaagii title-kaagii achievements-kii ama guulihii aad gaadhay intaas waa inta ka reeban in CV-gaaga lagu qoro haddii aad ku qortana wax macno ama had iyo jeer samayn mayso waxyaabo kale oo ka reeban baa iyaguna jira oo aad sii google garayn karto oo sii baari karto waxaan haddaba samayn doonaa inaan toos u geli doonaa inaan CV-gii samayno CV-ga haddaba si aynu u samayno caadiyan markaad Microsoft Word soo gasho CV-ga magacaaga ugu horreysiinaysa xataa lama baahna inaad ka horreysiiso CV ama inaad tiraahdo aad resume ka horreysiiso wax loo baahan yahay ma aha runtii waxaad ku qoraysaa had iyo jeer magacaaga ku bilow addresskaaga telefoonka iyo emailkii waa muhiim markaa intan inay taalo meel ishu ay ku dhacayso waayo waxaad u baahan tahay haddii CV-gaaga laga helo oo ay CV cajiiba noqoto inaad qofkii employer-ka ku qasabto inuu markaaba kula soo xiriiro intaa markaad saa u qorto waxaa iyaduna muhiima inaad in yaro profile qorto ama statement yaroo kaa warramaya kumaa tahay adigoo run ka sheegaya exactly qofka aad tahay baad qoraysa adigoo graduate haddaad tiraahdo waxaan ahay 10 sano experience aan leeyahay waa beentaasina waxa weeyaan mar la soo qabtaba waa la soo qabanaya intaa markaad saa u qorto yaani ka badan 3 line 4 line oo kooban oo xiise gelinaysa qofka hadii jeer CV-ga akhriyay waxa ku xigaya markaa work experience ayaad iyadana qoraysa hadii jeer waxa organizer ha noqdaan ha habaysnaadaan waxaynu gelinaynaa markaa table marka work experience-ka waxa weeyaan waxaad qoraysaa sanadkii aad shaqada qabatay ilaa xilliga aad haysay cid aad u shaqaynaysay iyo title-kii iyo faahfaahinta wixii aad qaban jirtay waxaanu samaysanaynaa markaa table yar waxaan tagayaa insert waxaan leeyahay table yar noocaas oo kale aan samaysanaya halka waxaan ku qorayaa markaa date halkaana waxaan ku qorayaa employer halkaana waxaan ku qorayaa title ama position aad ka haysay employer-ka intaa markaan sameeyo halka waxaan ku qorayaa markaa date-kii waxaan leeyahay 2011 to present ninka la Maxamed Ibrahim 2011 ilaa hadda wuxuu ka shaqeynayay Somali Choice markaa wuxuu ka ahaa accountant xisaabiyo ka ah inta markaan saa u qoro waxa la iga baahan yahay inuu xisaabiyahani wixii uu qabanayay inaan qoro marka waxaan sameysanayaa row yar oo kala sameysanayaa halka waxaan ku qorayaa markaa tasks waxaan isku furayaa markaa rowga highlight-kan saaraya waxaan oranayaa markaa right click merge cells dabeed kaasaan hoos soo degaya halka markaa waxaan ku qoraynaa ninka odaga ee accountant-ka ah muxuu qaban jiray waxaan ku tusayaa markaa meel haddaba taskiska aad ka soo download garaysan karto ama aad ka soo koobiyeysan karto laba mid bay noqonaysaa inaad website-kan aan kuu sheegi doono aad ka soo koobiyeysato iyo in exactly job description-kii aad lahayd ee aad company-ga ugu shaqeynaysay aad qorto waxaanu gelaynaa markaa website la yiraahdo net online.org website-ka waxa iskale qolo la yiraahdo American Job Center baale waxa ku jira dhammaan job descriptions-ka shaqooyinka title-lada oo dhan inta u badan waxaan sameeynaa hadaba inta u soo qorano waxaan gelayaa markaa internet-kii baan gelayaa Google waxaan ku qorayaa markaa net online.org inta markaa aynu qorno site-ku waa kan waxa la yiraahdaa net online baa la yiraahdaa site-ka kan waxaan uga baahanay inaynu occupation-ka accountant-ka aynu helno job description-kiisa halka occupation baynu galaynaa waxaan ku qoraynaa markaa accountant
dabeed waxaan odhanaynaa markaa search raadi wuxuu inoo soo saari doonaa markaa positionska accountantka u dhow oo dhan inaga waxaan u baahanay ka accountantska ah waxaanu helaynaa markaa taskiskii uu qabanayay ninka odayga ah ee xisaabiyaha ah waxaa hoosta ka xiga toolska iyo technology-ga uu isticmaalayo waxaa hoosta ka sii xiga knowledge-ka looga baahan yahay qofka accountant-ka ama xisaabiyaha ah waxaa hoosta ka sii xiga skills-ki waxaa ku sii xiga abilities-ki waxyaabahaas oo dhan baad list garaysan kartaa qaadan kartaa waxaan daba u baahannahay imika inaanu taskiska oo kaliya qaadano highlight-ka ayaynu saaraynaa dabadeed waynu koobiyeynaynaa waxaynu soo laabaynaa kan markaa minimize then halkii taskiska ayaan right click samaynaya waxaan leeyahay markaa best waxaanu hadda samaynaa markaa employerkii koowaad Soomaali Jabis buu ahaa accountant baan ugu shaqaynayay waxyaabahan waa wixii aan qabanayay haddaba waxyaabaha aynu soo koobiyeynay wixii aanad awood u lahayn ee aanad qaban karayn ka saar wixii ka dhiman ku dar waayo wanaga nidhi looma baahna macluumaad fake ah inaanu had iyo jeer CV-geenna gelino oo hadhow haddii wax laynaga weydiiyo aynaan ka jawaabi karin taasi markaa shaqadii koowaad bay ahayd halkan aan imanaya waxaan leeyahay shaqadii labaad 2010 ilaa 2011 jaamacadda Hargeysa ayuu ninka odayga ahay wuxuu ahaa human resource director madaxa shaqaalaha ayuu ahaa wuxuu u baahan yahay markaa in haddaba la qoro bool baynu ka dhiganaa titleska always waxaan haddaba u baahannahay taskiskii HR-ka inaynu la soo baxno kaa waynu isku furaynaa had iyo jeer taskiska highlight-kaynu saarana waxaynu leenahay right click merge cells dabeed halkaasaan tegaya waxaan leeyahay human resource-ka taskiskiisii xaggaynu ka helaynaa waxaynu ka helaynaa inaynu kusoo noqonno website-kii onet marka aynu soo galno halkaa dusha sare ayaa waxaynu ku qoraynaa markaa human resource director dabeed waxaan leeyahay markaa enter wuxuu siinayaa markaa human resource job descriptions fara badan ta ugu dhowi waa taa 100% ka marka waxaan qaadanayaa taasoo kale human resource manager kaasi waa specialist human resource manager baan u baahanahay dabeed waxaan koobiyeysanaya markaa isagana taskiskii uu lahaa HR waxaan tagayaa markaa weelkii baan ku noqonayaa halkaasaan markaa soo dhigaya best waxaanu haddana samaynay maxay shaqadeennii labaad oo jaamacadda Hargeysa ahayd oo human resource director ahayd waxyaabaha markaa aynu soo koobiyeynay wixii aan sax ahayn ee aanad awood u lahayn ka saar wixii ka dhimanna ku dar haddii aad u baahan tahay shaqo saddexaad exactly oo la xidhiidha waxyaabaha CV-ga aad ku qoraysid khibradda u leedahay waxaad leedahay 2009 to 2010 waxaan ka shaqaynayay Puntland State University waxaan habaan leeyahay tusaale ahaan oo kale cashier then bool baan ka dhigayaa titleska halkaa waxaan ku qorayaa markaa taskis then waan isku furayaa markaa rowga waxaan leeyahay merge cells dabeed halkaasaan hoos u degaya waxaan leeyahay markaa cashierku muxuu qabtaa waxaan ku noqonayaa markaa onet online halkii aan ku qoro human resource-ka ayaa waxaan ku qorayaa cashier dabeed waxaan leeyahay enter waxaa ii soo baxaya markaa cashierski waxaan ku dhufanayaa cashierska occupation-ka then taskiska iyo shaqooyinku qabanayay exactly markaa intaa koobiyeyso dabadeed ku noqon markaa weelkii halkaa isagana right click samee waxaad tiraa best kaana wuxuu inoo soo dhigay job description-ka uu lahaa positionska aad qabatay oo dhan ama experience-kaaga oo dhan saasaad dhammaantood u list garaynaysaa intaa markaad saa u samayso waxaa ku xigaya markaa education-kaagii waxaad leedahay educational background maxaad soo baratay education-kii iyagana waxaad u samayn kartaa table waxaad leedahay insert table waxaan ka dhigayaa iyagana markaa date-kii institution-kii iyo certificate-kii waxaan leeyahay date institution-kii aan ka qaatay shahaadada iyo
certificate ama degree aan haysto waxaan sameeyaa marka waxaan leeyahay 2000 iyo waxaan leeyahay 13 waxaan leeyahay 2000 iyo 12 ilaa 2000 iyo 13 waxaan leeyahay waxaan Nairobi University ka dhameeyay ama su'aal ahaan oo kale Mogadishu University waxaan ka dhameeyay master's degree in economics waxaan kitaab baan qabanaya haddana waxaan qorayaa marka 2000 iyo 9 ama say 2005 ilaa 2000 iyo 9 waxaan University of Hargeysa ka dhameeyay Bachelor of Business Administration waxaan leeyahay 2004 ilaa 2003 Zimad University waxaan ka dhameeyay diploma in peace and conflict resolution نعم سأقول garay wax alla wixii aad barato dhan waxaan leeyahay 1996 up to 2000 waxaan dhameeyay Faarax Omar Secondary School shahaadadan helna waxay GCSE saa markaad u liis garayso ha iloobi inaad format garayso oo qurxiso oo hagaajiso inta markaad soo dhamayso waxaad ku xigsiin kartaa seminaaradii skills-kaagi waxa la leeyahay skills other skills waxaad oran kartaa seminars and trainings attended then waxaad isagana qori kartaa dhammaan wax la wixii aad samaysay tusaale ahaan bullets baad ka dhigi kartaa waxaad leedahay waxaan aqaanaa SPSS 20.0 oo statistics-kii waxa lagu sameeyo waxaad taqaanaa GIS waxaad baratay peace waxaad tusaale ahaan kala baratay peace and conflict resolution skills waxaad taqaanaa mediation skills waxaad taqaanaa conflict analysis waxaad ka qayb gashay governance and leadership seminar waxa la wixii aad skills lahayd ee la iskaranaysa inta waxaad ku xigsiinaysaa marka language oo iyadana aad ku qorayso languages ka taqaano waxaad oran kartaa Somali number 1 English Arabic haddii aad Talyaaniga taqaano Talyaani France hadda waxa la wixii language taqaano inta marka saa u liis garayso wixii reference waxaan u dhaafaynaa in hadhow interview kadib la soo codsado waxa ku xigaya marka CV inaad ka dhigto marka mid qurux badan oo wanaagsan oo aad formattingkeeda iyo aad u habayso si had iyo jeer attraction employer-ku marka uu si fiican had iyo jeer ay u soo jiidato marka CV-gaagu waxaan isku iman doonaa haddii la yiraahdo sessions kale oo waxyaabo kale insha Allah aynu kaga warramayno guul baan idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.